رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما توحن قادنين عشر كين هيجادا قارهانا قيبتا كوريكا iyo hoosdhiga iyo gudniinka. casharkan kii ka horeeyay waxaanu kaga soo hadalnay qaanuun ahaan formulaha qaabka uu eegyahay iyo qaabka loogu dhawaaqayo iyo wax kasta sida ay noqonayaan. maanta waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan sida aynu ereyada isu raacinayno iyadoo aynu afarta ugu horeysa ama lixda ugu horeysa badhe aynu si fiican u falanqeynayno. marka waxaynu kaga soo hadalnay a i u qaabka lagu dhawaaqo carabiga inagoo Soomaaliga oo kale aynu u qorayno qaabkan oo kale inagoo u qorayna a iyo i iyo u, laakiin carabigu uu xagga sare ayay ku qoraan a-dooda iyagu qaab kale u qoraan. qaabkan aad u qormaysaa qaabkaas oo kale halka haddaan ku qoro taas oo kale aad u qormaysaa iyadoo sanay u qormaysaa uduna saasay u qormaysaa. marka qaabtaas kaga soo hadalnay maanta iyadoo higaad ahaan ah oo xuruuf ah ayaynu akhrin doonaa. marka lixda ugu horeysa waxay noqon doontaa sharaxaad, inta kale laakiinse waxay noqon doontaa in aan caadi ahaan ugu dhawaaqo adiguna aad si fiican aad u fahantid. haddii aynu soo qaadano oo aynu kan oo kale aan kaga hadlayno oo kale tusaale ahaan oo kale waxaynu halkan ku aragnaa inkastoo xagga sare aydan ka arki karin oo xagga sare intaa yare ay ka maqan tahay oo loola jeedo u oo kale u baa loola jeedaa. xuruuftu xaraf kastaba inaga marka aynu qorayno Soomaaliga oo kale waxaynu raacinaa a iyo e iyo i iyo o iyo o. tusaale ahaan markaan qorayno baabuur oo kale waxaynu qoraynaa laba a waynu qoraynaa ba iyo buur. qaab saas oo kale aynu qoraynaa. tusaale ahaan oo kale mid kale oo tusaale yar nagu filan waxa weeyaan haddaynu rabno inaan qorno bas oo kale ama wax tahda baabuur ba tii hadda aynu kasoo qaadanayna baan dhahaynaa iyo buur saan u qoraynaa. laakiin Soomaaligu wuxuu leeyahay intaasi waa baa, intana waa buur ama baabuur. xuruuftan waxaa loo yaqaanaa shaqalo. xarafkana waa shibanahi, xarafka weynna waa shibanahi. xarafka weyni waa kan haddaba xarafka weyn, laakiin shaqaladan carabigu waa waxaan yare sare, waxaan sare weeye hoose iyo ka kuwa weeyaan. marka haddii aad ba rabtid inaad qortid oo saas oo kale ah carabigu saas oo qormeeyaa waxaan iyo kan wasla mid waa shaqaladii weeyaan. shibanaha iyaguna waa kuwa waaweyn. sidaas daraadeed maanta waxaynu akhriyeynaa waxaa loo yaqaano qaybaha xaraf kastaba shaqalkiisa uu wataa. marka xarafkan ugu horeeya shaqalkiisa waa ka xagga sare weeyaan, waa ka shaqalkiisii. xarafkan kan xigana shaqalkiisii waa ka i'diisii waa ta i baa lagu dhawaaqataa, tan hoose i baa lagu dhawaaqaa. xarafkan laankan ahna shaqalkiisa waa ka. marka mid kasta wixiisa lagu dhawaaqaya, midna midka kale loogu ma isticmaalayo. marka saas daraadeed xarafkan ugu horeeya aynu eegno kan ugu horeeya u weeyaan, kana waa i, kana waa a. carabiguna wuxuu leeyahay a iyo i iyo u buu leeyahay, ma laha e mana laha o. marka labadaasi carabiga kuma jiraan, saddexdaa kaliya uu leeyahay, saddexdiina waa ka. aynu markaa ku dhawaaqno inta ugu horeysa waxay noqonaysaa u. tanna waa kaafkan ku dhawaaqaysa markaa ki baa dhahaysa waa adigoo saa u qoray oo kale ki. kanna waxa weeyaan la'dii oo waxay wadataa a bay wadataa. marka meeshii la'da saa loo qorayay saasaa loo qorayaa carabiga sidan halka kaaga muuqata. marka u ki
لا بين قنسا أوكيلا أو يكي يلا ولا ددشنيا أوكيلا ولا دهيا مركا قاب كاس أو كله أي تهايتن كلنا وحويان يدنا وحويان حرف كوجه ري وأدي ويان لكن وحي وضع تاو مركا أو ولا دهيا iyo mi وما ميمك marka sida u qorayo sidaas oo kale weeyaan iyadana mi waa la dhahayaa tanina na waa la dhahayaa aadi way wadataa marka umina weeyaan umina xarafka ku xiga waxa loo yaqaanaa usira weeyaan waa u halka ku artid iyo siinka oo isna wata si waa la dhahayaa marka uu siinku sidan yahay siin baa lagu dhawaaqa laakiin haddii uu waxaan yeesho waxaan markuu ka kaliya markuu yeesho sa baa lagu dhawaaqayaa kan kaliya markuu yeesho si baa lagu dhawaaqayaa kan kaliya markuu yeeshana su baa lagu dhawaaqayaa siin lama dhahayo marka waxay noqonaysaa hadda tan oo kale usira ka ra'waytan dambe usira waxa aynu akhriyeynaa oo kale waa bu iyo di iyo la budila weeyaan marka mid walba wixii si uu wataa xiga ha iyo sa oo saadkii ah iyo bu hasabu waa dhahaysa hasabu ayaad ugu dhawaaqaysaa tan waxa weeyaan sa oo siinka sa baa la dhahayaa ba baa la dhahayaa iyaduna baadi oo kordhigan tahay iyadana bu-na waa la dhahayaa midda ba'da kale ee dambe weeyaan markaasa ba bu sababu lixdaasi xabo waa sharxaada iga ahayd insha Allah inta dambena waa soconaya anigoo aan sharaxaad aan saari doonin marka sidaa waa inaad la socotaan inta dambe waayahay waxa weeyaan tan ugu horeysa tuubica weeyaan tana waa turika si gooni ah oo eeg adigu hadhowto oo ka shaqaysi maskaxdaada maxaa loo yiri ri maxaa loo yiri ka maxaa loo yiri waxa soo dhan waa inaad adigu aad mataqaana aad eegtaa oo si fiican u fiirisaa hay'atana waa tuuciba weeyaan tana waa thurida thuluthu yarithu yaliju jurifa jumi'a kan xiga xumila xutima حكم خدم خلق خصف يلد دهن صمد ذبح عذب ذكر رفع شرف يكر يخير يخيز يخيز زهد حزن سبل حصون يبس شهب خشن شرب عصر قصر حصل ضعف ضحك ضرب ضلب ضلع بضل كظم ظلم نظف يقع عرض يضع غسل غرس يلغ فزع فرش يصف قبض يبق قسم كبت كره كمل يصل لمس لصق منع كمل مدح نزل يهن نفخ وضع وزن وكل هدم هزم سهل يسر عيون يهين حرف كسا ugu dambeeya insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa in aad 10 si fiican aad u soo akhriyi doontid hadii uu yani xawaaraha aan ku waday
aad u dheereynaysay waxaa samaysaa inaad yaraysid xawaaraha aad u yaraysid kabacdina si aad u yara fahantid ereyada sida loogu dhawaaqayana waa saas weeyaan yu iyo si iyo ra oo kale markaa leeyahay qaabkaas weeyaan marka waa inaad aad iyo aad uga baaraan degtid halkaasaan يعني كسوف ميري دونا إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.